caafimaadkee Soomaali maya habeen aanu miskiina uriyana abtee waalidkii saddexduna si Soomaaliyeed kani waa xasan maxamuud xasan oo isagoo qaba baahiyaha gaarka haddana ay dhul dhigtay cadaalad darro baaxad weyn da'yarkan ciilan ee aan helin cid caawisa ayaa ku nool nolol adag oo qof xitaa lixaadku u dhammaystiran yahay aanu kari karin habeenkii ma lada hurdo oo wuxuu la xanuunsanayaa xanuunka neerfaha oo sabab u noqday in uu qabto qalal maalintiina ma jirto cid uga garowda nolol maalmeedka taasina waxay ku khasabtaa inuu ku maareeyo noloshiisa dawarsiga dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed Turkiga jiriista agtooyaan waxaadiyaan caafimaad haro qaarala tusiye wabasarana xanuunaay saxab qabsatiri madaxweynaha buurada Soomaaliya wuxuu la ilmeynayaa xanuunka haya awgiis niyadda ayuu ka ciilcunayaa maadaama loo sheegay in caafimaadkiisu waxba looga qaban karin dalka haddana aanu helin mas'uul dawladeed oo caawiya ama qof Soomaaliya oo ka damqada xaaladiisa xasan maxamuud xasan ayaa qolkan yar kula nool aabihiis oo ah nin sabool ah oo la dhacaya quudka maalinlaha ah iska badaa caafimaad dibadda ah hooyadiis oo lagu magacaabi jiray Nimco Xasan Cali waa la dilay sida uu sheegayna waxaa dilka u geystay sargaal ka tirsan booliiska Soomaaliya qaybta Dayniile kaas oo uu Xasan sheegay inuu hooyadiis u dilay 3,000 oo shilin Soomaaliya darteed degmada Kaaraan markii ay dalka ka arimin jirtay dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo soo xasuusanaya markii ay hooyadiis ay nooleed sidii ay u garab taagneed heel iyo horumarba uu u hiigsanayay wuxuu ku cataaway sidan ani wiil Soomaaliyeed dalte jiite inoo rarawa wustare caafimaadii qaad lay khayraadise isagoo socodka uu dhibayo ayuu maalin kasta gaaf wareegaa xafiisyada dawladda si gaar ah agagaarka madaxtooyada wuxuuna baadi goob ugu jiraa marley inuu arko ama la kulmo ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha si looga caawiyo inuu helo caafimaad dibadda ah xitaa mararka qaar wuxuu istaagaa bartamaha jidadka mar kasta oo uu arko gaari qafilan oo ay la socdaan ilaalo gaar ah wuxuu sawirtaa inuu saaran yahay ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha markaas oo uu u gacan taago qaylo dheer laakiin dhegtii la rabay aanu ku dhicin ayuu yeeraa ummadda Soomaaliyeed Turkiga jiriista agtooyaan waxaadiyaan caafimaad haro qaarala tusiye mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare waxaa xafiiska u joogtaan inaad caawisaan dadka dhiban fadlan u gurmada wiilkaas yar iyo inta kale ee la midka ah ee u baahan caawintiina fadlan madaxweyne mudane ra'iisul wasaare wiilkaas yar u cadaalad fala caafimaadkiisana ka shaqeeya fadlan walaalkay walaashay Soomaaliyeed u gurma wiilkaas yar ee maanta adiga ku baahan